السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanayso. maxaa ka soo baxay kulamadii saaka ka dhacay magaalada Masqad ee dhexmaray Iiraan iyo Mareykanka? warar faahfaahsan oo ku saabsan kulanka sidii u dhacay, sidoo ku bilowday, qaabka iyo wixii meesha lagu wada hadlay ayaanu barnaamijka si weyn ugu faaqidi doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa masaarida oo weerar ku qaaday Netanyahu hadal shalay uu ka sheegay ciidamada waddanka Masar. Pakistan oo lagu baaba'ay maantay, iyo sidoo kale waxaan barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa Turkiga oo sheegay 2 basaas oo u shaqaynayay sirdoonka Israa'iil inay qabteen. ugu horeyn wada hadaladii loo ballansanaa maanta inay ka furmaan magaalada Masqad caasimadda dalka Oman, kuwaas oo dhexmarayay wafuudda Mareykanka iyo Iiraan. haddaba barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa sida ay wax u dhaceen. saako dhan baan ka shaqaynayay oo aan la socday wada hadalladaas. haddaba marka waxaa la leeyahay wada hadalladu ma ahayn kuwo foolka foola ma ahayn. macnaha inay inta Mareykanku soo baxaan halkaas soo fariistaan, qolooyinkan halkan fariistaan Iiraaniyiinta, iyagu toos uma wada hadlaynin. ninka wasiirka arrimaha dibadda ah ee Oman ayaa labada dhinac waxay yiraahdeen u kala dab qaaday. qoladana meelay ku jireen, qoladana meelay ku jireen. waayahay sidee marka wada hadalku ku bilowday? wada hadalku marka wuxuu ku bilowdaa la leeyahay marka ugu horeysa wasiirka arrimaha dibadda ee Oman wuxuu la fariistay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi iyo wafdigii la socday. wuxuu ka dhageystay xogaha iyo wixii ay hayeen. kadib ayuu baxay, haddana wuxuu u tagay Witkoff. markuu u tagay waa ergeyga Mareykanka iyo qoladii Mareykanka iyaguna wixii u sheegay. mar labaadkii haddana wixii ayay soo qaadeen way u sheegeen, oo macnaha waxay mar labaadkii ayay ku soo laabteen wafdigii Iiraan. mar labaadkii markay soo laabteen waxoogaa caqabada ayaa dhacdaa la leeyahay. marka caqabadu waxa waayaa la leeyahay Iiraaniyiintu waxay ogaadeen nin la yiraahdo General Kober inay wafdiga Mareykanku soo kaxaysteen oo uu la joogo. General Kober waa ninka taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka. diblomaasi iyo military haddii wada hadalladu ay iskula socdaan annagana kuwayna kaysanayna, laakiin saa suuragal ma. waxaa la isku dayo horta arrinka in cabaar nimankii Iiraaniyiinta ahaa laga qanciyo, la yiraahdo war ninkay rabaan ha soo wataan daaya. Mareykanku ninkay rabaan ha soo wateen. markii labaad haddana wada hadaladii waxaa wada galay wafdigii Iiraaniyiinta iyo wasiirka arrimaha dibadda Oman. wasiirka arrimaha dibadda Oman wuu ka baxay, haddana wuxuu u tagay Mareykanka. marka waa 2 mar oo uu la kulmay wafdiga Iiraan iyo 2 mar oo uu la kulmay wafdiga Mareykanka. kadib waxaa la qaatay bareega la qaatay oo macnaha qolo walba waxay falanqeynaysay wixii lagu wada hadlay. 2 fariimooda la isdhaafsaday. qolo walba marka qolaa ku daaban, qoladana Ayatullaahi iyo raggii wax ka sugaya, qoladana Trump iyo raggii iyo wax ka sugaya. marka meesha horta hadda xaaladu maraysa. marka goor dhow marka waxaa jira war soo baxay oo telefishinka Sky uu qorayo. wuxuu leeyahay telefishinka rasmiga ah ee dowladda Iiraan ayaa sheegay in wada hadalladu laga yaabo inay qaataan ciddata ayaam, macnaha dhowr maalmood oo kale inay qaataan ayaa laga yaabaa wada hadallada. marka horta wada hadalladu sidaasay marka ku socdaan, waxayna ka socdaan magaalada Masqad. marka waxaa leeyahay ma jiro wax tafaasiil dheeraada oo ku saabsan waxa la isweydaarsaday. laakiin miidiyaha Iiraan ayaa waxay sheegeen iyagoo soo xiganaya hadal saacadihii la soo dhaafay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan uu sheegay hadalkaasoo uu ahaa in Iiraan marnaba aysan ka tanaasuli doonin waxa iyada danteeda ah. uraniumkeena kama tanaazulayno, nuclearka nabadgelyada samaysanayno kama tanaazulayno.
hanaankeena sawaariiqdana kama tanaazulayno. laakiin waxa aan ka wada hadli karnaa waxay tahay uraniumka sidaan u yarayn karno, sidaan ugu qancin karno caalamka iyo dalalka caalamka inaynaan hub nucleara u socon oo nabadgelyo u samaysano, saan ula shaqayn lahayn hay-adda atomiga adduunka. waxyaabahaas ayaan maaragtay ka wada hadlaynaa idhaan. marka horta wararkaasu waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay ee maanta ku saabsan. aad waxaa loo sugayay arrinta ku saabsan wadahadalladaas. marka hadda wadahadalladii inay sii dheeraanayaan telefishinka iiraan sheegay, saan haddaba idiin sheegay, oo dhowr maalmood oo kala qaadanayaan. laakiin waxaa la sugayaa goordhow. maraykanku waa hadal badan yihiin maaragtay warbaahintoodu inay warar soo saaraan. Trump laftirkiisu waa war badan yahay inuu kusoo qoro meesha uu mar walba wax kusoo qoro, true social la yiraahdaa, waxa isaga soo qoraa. marka waxaasoo dhan weli way soo socdaan. hadda aan duubayo wax warar oo dheeraad oo intaa ka badan oo kulanka ka soo baxay ma jiraan, oo halkaas ayay xaajadu maraysaa. wixii soo kordha marka waa arki doonaa oo waa la socon doonaa. qodobada kale ee barnaamijka aynu kusoo gudbinayno waxaa ka mid ah masaaridii ayaa weerar waxay ku qaadeen ninka la yidhaha netanyahu. netanyahu waa tii barnaamijyadeedii shalay aan kusoo qaadanay uu lahaa waxaan ka baqayaa khatarta nooga iman karta ciidamada masaarida oo sii kobcaya. masaaridiyaa marka waxay weerar ku qaadeen netanyahu. maxay ka rabaan? maxaa kaa galay leeyihiin ciidankeenna? ha weynaado ha yaraado, maxaa annaga tashwiish noogu furaysaa? oo ciidankan hadda kama baqayee mar kale ayaan ka baqayaa iyo waxa kan iyo maxaa afaarahaas ku geliyay? marka saake waxaad leeyahay aqoon-yahan ha dhihin, qof caadiya ha dhihin, dadkii masaarida oo dhan waxay ka falcelinayaan hadallada ninkaa shalay uu jeediyey ee ku saabsanaa ciidanka masaarida. haddaba telefishinka la yidhaahdo ra'yul yawm ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay masaaridu waxay weerar daran ku qaadeen netanyahu sababo la xiriiray hadal uu jeediyey oo ahaa in uu si weyn u korayo ciidanka masaarida. haddaba waxay sheegeen dadka Masar in arrintaasu ay tahay arrin layn cas ah oo markaa oo ninkan xaqaa'iqa iyo waxa socda uu iska indhatirayo dadku doonayo iyo adduunka inuu kusoo leexiyo. Masar ayaa doonaysa inay maaragtay ciidankeeda dhisto si ay dagaal u abuurto. marka hawshaas iyaduna halkaas ayaan kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijka aynu kusoo qaadanayno maanta oo jimcaha oo barnaamijkeeni koowaad aanu ku jirno wuxuu yahay waxaa lagu baaba'ay maanta Bakistan masaajid ku yaala. masaajidka waliba waxaa iska lahaa muslimiinta shiicada. bakistaaniyiintu waxay isugu jiraan sunniyiin iyo shiica isugu jiraan, kastoo sunnigu uu badan yahay, laakiin shiicada laftirkeedu way tiro badan tahay. marka masaajid shiicada ay ku tukanayeen ayaa maanta dad badan lagu laayay. marka warar kala duwanaa soo baxaya, laakiin warar horudhaca booliisku waxay leeyihiin waxaanu ka shakisanahay in lagu sii rakibay bamka dadka intaysan salaada u imaan ka hor. masruuc la yidhahdaa waa meeshaa lagu sii beeray oo macnaha waa lagu sii qariyey masaajidka. haddaba markaa idintuso wararkii ugu dambeeyey khasaaraha iyo dhibaatada halka uu hadda marayo. Bakistan waxay sheegeen in ay sare u kacday tirada dadka ku dhintay qaraxii ka dhacay masjid ku yaalay magaalada caasimadda Islamabad, kaasoo la sheegay inay ku dhinteen ilaa hadda 31 qof. haddaba warbixintu way sii socotay, waxaa la leeyahay 31 qof ayaa dhimatay. waxaa sidoo kale dhaawacmay dad tiradoodu ay ka badan tahay 169. waxaana la sheegay in la bartilmaameysado la weeraray masjid ku yaala caasimadda Bakistan ee Islamabad iyadoo lagu guda jiray waliba xilligaas salaadii jimcaha oo halkaa dadku ay ku tukanayeen. haddaba wargeyska la yiraahdo Dawn ee ka soo baxa Bakistan
ayaa sheegay in markaa qaraxa uu dhacay masjidka waxaa la yidhahdaa al-imaam barqa lidaa'ifa ashiiciya la yidhahdaa waxawaaye waa masaajid ay leeyihiin muslimiinta shiicada wuxuuna ku yaalay deegaanka la yidhaahdo shahraad town oo ku yaala bartamaha islaamabad. haddaba jiraddu waxay soo xigatay saraakiil ka tirsan booliiska bakistan waxayna sheegeen in khasaaraha laga yaabo inuu intaa ka sii kordho oo uu sii bato. booliisku waxay aaminsan yihiin in bamka qarxay lagu sii xiray masjidka gudihiisa ka hor dadka salaada tukanaya intaanay masaajidka usoo bixin oo aysan imaan. marka muslimiintii dee waa kaas wadamadii muslimiinta meel uusan qarax iyo jug iyo nagta la isku hayn ma jirtaa laleeyahay. marka allah u naxariisto dadka halkaa ku dhintay. marka sidaasa wax u dhaceen weli tafaasiil badan iyadana lagama hayo oo waa lagu baaba'ay maanta caasimadii bakistan ee islaamabad. qadar xayeysiisa kadib asxaabay waxaynu u gudbi doonaa turkiga ammaankiisa oo war soo saaray oo leh waxaynu qabanay dad jaajuusiina oo u shaqaynaya yuhuudda. turkiga ayaa sheegay inay qabteen 2 qof oo la sheegay inay u jaajuusayeen hay-adda sirdoonka israa'iil u qaabilsan dibadaha ee la yidhaahdo muusaad. haddaba aan idin tuso telefishinka wargeyska la yidhaahdo ra'yul yowm wuxuu sheegay sirdoonka turkigu inay sheegeen inay qabteen 2 qof oo u shaqaynayay hay-adda muusaad ee sirdoonka israa'iil. haddaba waxaa la sheegay hay-adaha sirdoonka turkigu inay 2 qof gacanta ku dhigeen kuwaasoo la rumaysan yahay inay israa'iil muusaadkeeda ka tirsanaayeen. dadkan la qabtay oo turki ah labadaba waxaa magacyadooda la kala yidhaahdaa maxamed bowdaag darya iyo wiisal kariim oglo. waxaana la sheegay in markaa raggan ay qabteen magaalada istanbul lagu soo qabtay ayagoo markaa la sheegay inay ku guda jireen howlo halis ku ah amniga dalka turkiga. marka waxaa leeyahay 2 qofba waa turki oo la qabtay oo u jaajuusayay sirdoonka muusaad ka tirsanaa. 2daas waxaa lagu qabtay istanbul. baaritaana hadda ku socda falal liddi ku ahaa layidhi waa la soo gaabiyey amniga dalka turkiga ayay ka shaqaynayeen. marka weli tafaasiil kale iyaduna lagama hayo. waa ujeedaan waa la isbasaasaya. shalay waataan kusoo qaadanay barnaamijka israa'iil oo 2 yuhuud oo iiraan u basaasaysa qabatay. maalmo ka hor iiraan qolo iiraaniyiina oo u shaqaynaya yahuudda qabtay. marka waa lagaa dhex adeeganayaa adiga inta lagu dhex yimaado shaqaalo lagaa dhex samaysanaya markaasaa lagaa dhex shaqaysanaya. marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa ee soo kordhay. marka